Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Saalax Axmed Jaamac oo wareysi siiyay idaacadda iyo telefishinka Turkiga ee TRT ayaa ka hadlay damaca gurracan ee Itoobiya ay ku doonayso qayb ka mid ah dhulka iyo biyaha Soomaaliya. ugu horreyn Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa la weydiiyay in Somaliland ay xaq u leedahay in ay dhul ka kirayso Itoobiya iyo in kale. To begin with, Somaliland is not entitled to get into international agreements. waxa uu sheegay inaysan xaq u lahayn in ay galaan heshiisyo caalami ah sababtoo ah waxay qayb ka yihiin Soomaaliya. 1 Janaayo ee sanadkan ka hor Soomaaliya waxay ku mashquulsanayd hagaajinta dhaqaalaheeda la dagaalanka al-shabaab soo afjaridda deegaanfinta oo muddo 10 sano ah nagu qaadatay iyadoo lagu guuleystay in la bilaabo dagaal adag oo ka dhana al-shabaab isla markaana dib loo soo celiyay xiriirka caalamiga ah oo qayb ay ka yihiin barnaamijyada siyaasadeed ee madaxweynaheena iyo xukuumadda hadda jirta ee uu ra'iisul wasaaraha ka yahay Mudane Xamse Cabdi Barre. siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa lagu wargeliyaa qof Soomaali ah oo nabad kula nool naftiisa iyo caalamka intiisa kale ayuu yiri Mudane Saalax. waxa uu sidoo kale sheegay in arrinta ku saabsan isafgaradka ay tahay khatar lama filaan ah oo ka imaanaysa Itoobiya taasina ay walaac weyn ku tahay dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed saameyn weyn ay ku yeelan doonto shacabka ku nool Geeska Afrika. waqtigan wuxuu ku dhawaa waqtigii xoogga la saari lahaa wax ka qabashada saameynta isbeddelka cimilada, cunno yarida, horumarinta dhaqaalaha, isdhexgalka dhaqaalaha, wanaagga bulshooyinkeena. waa wax la yaabo in xilligan hal wadan uu isku dayo in uu galo dhulka la isku daray dalkii soo galay iyagoo ku andacoonaya in ay u baahan yihiin inay helaan badda. xaqiiqdii Itoobiya waxay ka heli kartaa bad ama dekado meelo ay ka mid yihiin Djibouti, Soomaaliya, Kenya iyo Eritrea. wax dekad ah oo la heli karo ma yara, laakiin tani waa mid aad u badheer ah oo xadgudub ku ah xuquuqda madaxbannaanideena Soomaaliya waxayna saameyn weyn ku yeelan kartaa mandaqada Geeska Afrika ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Saalax. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in arrintan ay ka dhalan karto isku dhacyo sababtoo ah dhaqanka mas'uuliyad darrada ah ee madaxda Itoobiya. sidoo kale Saalax ayaa wax laga weydiiyay dagaalada ay kula jiraan kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab. waxa uu sheegay in asalkooda laga soo bilaabi karo sida uu hadalka u dhigay markii ay ciidamada Itoobiya soo galeen Soomaaliya, balse wixii xilligaasi ka dambeeyay dawladda federaalka Soomaaliya dadaal u gashay dagaalada kooxaha xagjirka ah dalka looga ciribtirayo.